السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برتان ورجال official maantay iyo mar kale in muuqaal cusub soo dhawaada daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran Rijal Official. ballanteenu mar walba waa 1 million subscribe mahadsanidin. intaana gelin videoga waxaana wax yar oo dhac codsiya inaan isoo gudbiyo daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran bartaan waxaana inaad soo boqotaan channelka kula sidii oo ah channel uu leeyahay nin dhalinyaro ah rabana inuu YouTube-ka meel fiican ka gaaro sida aan ugu camirtaan ama ugu shideen inaan ugu shidaan jeclaaleen insha Allah maanta waxaana videogan yani inaan isoo saarno bartaan commentiga soo dhawaada la commentiga ka raaca kuna soo yaaca insha Allah waxaan rabnaa inaan نيلا أكملش إلى كسر رجال official سيدا موضوع عمرتنا أو موضوع عمرتنا نكاس ولا كنا سومالنا لو لقيه خلنا أسق عمرتنا يسق عاودنا ما سميدين مركلة برتون ورجال official إيجا بعدين كله بس قادو كوا كله كابوس قادو كله واحد انتو قادو اللي تنب ما صار قادو جدوا وكله جوي قادو ما أنت وحرنا إنا كهذا المو baaritaan aan sameeyno oo muddo ku soo jirnay ama research waxa aan afka qaan lagu dhaho aniga iyo asxaabteyda dhamaantood inta asraacnay inaan soo baarnay degmooyinka tagnay Facebook galnay TikTok galnay meel walba waxaan soo ogaanay 10 degmo ee ugu gabdhaha shidan ama ugu dumarka qurxoon gobolka Banaadir ee ku noolahay gobolka Banaadir ee ku noolahay waxa ku nool gabdha aad iyo aad u qurux badan style ah dhan walba ka diyaarsan ilbaxnimada hadii aaleed istirtirka iyo isnaanaashka iyo kulli darbaxshada waxa dhan isku duub gabdha shidan oo kala kacsan ayaa ku nool gobolka Banaadir marka waxaan rabnaa 10 degmo gabdhaha waxaan soo bandhigay maanta ayadoo jirin wax waxaana ka bilaabi doonaa lambarka 10 ilaa aan ku tagno lambarka koowaad degmada kaalinta koowaad gashay hadaa lambarka 10 galno lambarka 10 waxa galay degmada Boondheero libaax waa degmo aan ku ebnooniga iyo tartamada aqoonta iyo nooc walba leh maanta waxa soo galay lambarka 10 dhanka gabdhaha ugu shidan gobolka Banaadir ugu qatarsan ugu istalka fiican degmada Boondheero ayaa gashay kaalinta 10 waxaan leenahay hambali degmada Boondheero degmada 9 waxa gashay lambarka 9 waxa galay degmada Kaaraan waxa ku nool gabdhaha aad istal u qurxoon u shidan u dheer dhan walba ka diyaarsan waxaana siinay kaalinta 9 waa waxaana soo arno baaritaan ku soo sameeyay iska dhimaan kaalinta 8 waxa soo galay degmada baaxadda weyn ee Yaaqshin degmada Yaaqshin waxa ku nool sida soo sheegnay gabdhaha ugu shidan hada ugu khatarsan waana soo baari kartiin waxaan waa baaritaan sameeynay ma aan iska siin degmada maxaa sideen degmada quruxdan waa wuxuu Ilaahay bixiyo degmada Yaaqshin ayaa soo galay lambarka 8 halka lambarka 7 ay soo gashay degmada Wadajir ee dariska leh degmooyinka Hodan iyo Dharkiinley iyo Wabari degmada Wadajir waxa leenahay hambaliyo gabdhaha shidan ee ku nool degmooyinkaas meesha waxa jirto degmooyin aan ka reebnay gadaalan kala socodin degmooyinkaas iyo waxyaabaha oo reebnay laakiin hadda waxa soo qiimeeyay 10 degmo ee ugu shidan way degmada lixaad waxa galay degmada Howlwadaag waxa gashay lambarka 7 gabdhaha ugu qurxoon waxay ku nool yihiin degmada Howlwadaag waxa leenahay hambal lambar fiican ayaa gashay lambarka 5 waxa galay degmada Shangaani waa degmo yar ee ku taalo gobolka Banaadir dhanka xeebtana dhacdo Cabdicasiis Xamarweyne darsle marka waxa leenahay hambaliyo degmada Shangaani ee gashay kaalinta 5 gabdhaha ugu shidan ugu qurxoon lambarka 4 degmada gashay waa degmada Shibis waxa leenahay hambaliyo gabdhihiina waxa way kaalin ay keeneen baaritaanka sameeyay degmooyinka marka mareynay gabdhaha meeshaas kula kulanay iyo dadka wareysiga la yeelay dhamaan waxay noo cadeeyeen lambarka ay u qalmadaan degmada Shibis oo ah gabdho isteelasha oo qurxoon oo ma sha Allah lambarka 3 waxa soo galay degmada Xamarweyne waa degmo xuduud la leh degmooyinka Wardiigley iyo Xamar Jajab Shangaani waxay gashay lambarka 3
waxayna leedahay gabdhaha ugu shidan ugu qurxoon ayaa ku nool degmadaas. lambarka labaad waxaa soo galay hadda waa lambarka labaad degmada warta nabadda ex Wardhiigley waxay leedahay degmooyin badan ayay xuduud leedahay sida Yaaqshiid, Boondheere, Xamarweyne, Howlagaag, degmooyin badan leedahay waxay soo gashay lambarka labaad. warta nabadda waxaa ku nool gabdha aad iyo aad u shidan u qatarsan dhan walba ka diyaarsan istel hadduu ahaadahay sidaa hore nagu sheegnay haddii ahaada labiska ilbaxnimada dhammaan Wardhiigley wasaaraddu ay Soomaalidan hore u jirtay inta kale wakaalad waaye laakiin ma kusii dheeraanay inkastoo degmadaas ay qaadatay lambarka labaad degmada ugu shidan uguna gabdhaha qurxoon. haddii yaa sugaysaan kaalinta koowaad yaa gala isleedihiin waa lambarka koowaad yaa u qalmado dadweynaha yaa u qalmada lambarka koowaad daawadayaasheena sharafta leh. lambarka koowaad waxaa galay degmada Kaxda waxaan leenahay degmada Kaxda hambalyo lambarka koowaad ayaa gasheen baaritaankaa sameynay. degmada Kaxda waa degmo xilli dambe degmo noqotay xilligii waxaa maleynaa madaxweyne Sheekh Shariif uu waddanka xukumayay degmadaas ayaa waxay noqotay kaalinta koowaad waxayna gashay waxaana ku nool dumarka ugu qurxoon ee gobolka Banaadir meel haddii iskugu imaado ama loo soo baxo gabdhaha ugu shidan waxay ku nool yihiin degmada Kaxda. waa wax xaqiiq ah oo baaritaan la soo sameeyey ma aha wax laabal kaca ama iska dhiiba. degmada Kaxda waxaa leenahay hambalyo gabdhaha indhaha burbuuran leh dheer dhuudhuuban dhexda yar hambalyo ayaa leenahay waana muteysateen inaa qaadataan lambarka koowaad. degmooyin waxaa jiro laga tegay sida aa isleedihiin dadaa waxaa kusoo dhici doonto degmada Hodan. degmada Hodan horta waxaa ugu badan waxa waaye waa meel ganacsi. degmada Hodan waa meel ganacsi waa meel waxbarasho waa meel baalki hay-adaha ugu badan meesha ku nool yani degan yihiin waaye haddii aaleed waxbarashada ganacsiga NGO-yada haddii aaleed international community-ga degmada Hodan ay degan yihiin. degmada Hodan gabdhaha qurxoon aa ku arkaysiin asdiinina degmada Hodan ay degan yihiin waxay kasoo adeeg tagaan degmooyinka kale gabar waxbarasho u imaatay gabar shaqo u imaatay gabar arrimo kale u imaatay marka degmada Hodan meel lagu kulmo waayo ma ahan degmooyinka yani ugu gabdhaha qurxoon ma ku jirto xaasilin uma saar laakiin baaritaan sameyn. sidoo kale degmooyinka waxaa ka saarnay waa beri Xamar Jajab Dayniile Dharkiinley waxaasoo dhan ma soo qaadan wax kalena ma aha waxa waaye waxaa ka weynay gabdha aad iyo aad u shidan. gabdhaha waa degan yihiin laakiin gabdho badan ma aha degma haddii ku nooshahay hadda tusaalahaan degmada Kaxda waxaa ku nool tusaalahaan haddaan tusaalayaal naga soo 500 oo gabdhood oo qurxoon oo istaal haddaa degmada ka waran degmada Dayniile ama Hodan ama waa beri ama Akaalmo ama Xamar Jajab Akaalmo 10 gabdhood oo qurxoon marka degmadaas ma ka dhiibi kartaa ama 100 gabdhood oo qurxoon ma ka dhiibi karto. marka waxaa siinay 10 degmo degmooyinka ugu gabdhaha qurxoon ugu gabdhaha shidan. barnaamijyo kale oo noocan oo kale waa soo socdaa insha Allah. barnaamijkan waxaan rabnaa bartan inaan ku gabagabayno waxaa igala qayb qaatay saaxiibkay Aamin oo ah madaxa Kulanside. waxaan rabaa insha Allah janalkiisa inaad soo booqataan baaritaankana dadka ila sameeyo ku jiray waxaa igala qayb qaatay saaxiibkay oo meesha rabaa inaan uga mahadceliyo Cabdisalaam sidoo kale Baaquli Boy saaxiibkay Deeq waxaa kaloo nagala qayb qaatay gabdho badan oo ayaan kamid tahay Hodan kamid tahay Farxiye kamid tahay Anise kamid tahay dhammaantood waxa waaye wareysiga nala soo qaadayeen baaritaanka nala sameynayeen. waxaan meesha ku soo ogaanay 10 degmo ee ugu gabdhaha shidan uguna gabdhaha qurxoon waxaa leeyahay wiilkii gabar shidan rabow aku yaaca degmooyinkaas ka raadsado. maanta waxaan rabnaa intaas inaa yani kusoo gabagabayna barnaamijkeena 10 degmo ugu gabdhaha qurxoon. maanta fadhi ayaa ku qiimeynay intaan tagno baaritaan soo sameynay annagoo bartaan fadhino laakiin mar dhow insha Allah waxaan tusi doonaa intaan mikrafoon qaadano inaan la dhexgalno bulshada ku nool gobolka Banaadir magaalada Muqdisho wareysano degmooyinka ugu gabdhaha qurxoon ayaga ayaana kala cadeey doono. adinkana waxaan iga codsanayaa fadlan wixii ra'yigiina inaan ugu rabtaan commentiga soo dhawaada insha Allah waa isla socon doonaa annagoo mikrafoon wadano oo bulshada afkooda ay ku cadeey doonaan siini doonaan dhiibina doonaan degmooyinka ugu gabdhaha shidan. ma aan rijaal official team wax ay samaystaan oo kaliya laakiin waxay noqon doontaa wax babliga. barnaamijka xigo iyo mikrafoon soo dhawaada ballanteena waa meesha isku ogan 1 million subscribe mahadsantiin.